shacabka degmada Xarshin ee gobolka Faafan iyo shacabka degmada Dhagaxbuur ee gobolka Jarar ayaa iska kaashaday sameynta waddo dhererkeedu dhan yahay 85 kiiloomitir. Wadadan oo ka soo bilaabanta tuulada Balligubadle ee xuduudda Soomaaliland ayaa waxay wadadan sii dhaxmari doontaa tuulooyin iyo dhul hawd labadaba, waxayna wadadan laamida kaga dari doontaa tuulada Higleley ee degmada Dhagaxbuur. Wadadan iska kaashadeen shacabka labadaasi gobol iyo qurba joogta ka soo jeeda ayaa waxay wadadan hagaajinteed iyo sameyntuba gaadhay 43 kiiloomitir. waxayna shacabkani soo kireysteen cagafyada geedaha gooya iyo kuwa wadooyinka xaadha labadaba. waxayna shacabkani aad ugu hanwen yihiin in ay wadadan ku dhamaystiraan ka qaybgalka dadweynaha ee labadaasi gobol. wuxuuna xafiiska jidadka iyo gaadiidku ku taageeray shacabkaasi wadada samaysanaya dhanka farsamada iyo cabirka wadadaasi. waxaana kormeer ku tagay wadadaasi wasiirka jidadka ee dowladda deegaanka Soomaalida Roble Cawaale Bucul iyo gudoomiyaha degmada Xarshin Mukhtaar Maxamed Xuseen. wadadan ay samaysteen bulshada degmada Xarshin gaar ahaan Balligubadle iyo dhammaan bulshada ku nool xakan la qayrta. wadadani waxa isku xidhaysaa Balligubadle ilaa iyo Higloley waxay dhan tahay 85 kiiloomitir. hadda bulshadu waxay san adarkaysaan ay u banaysatay ay clearance-gii iyo gradertii hore ee maxay ahaydeen isku simeysay ay samaysteen 43 kiiloomitir. 43 kiiloomitir oo ku joogno meesha la dhaho Cafuufley Balligubadle ilaa Cafuufley 43 kiiloomitir weeyaan. waxaa dhiman 42 kiiloomitir. 42 kiiloomitir waxaa socda halda survey dataagi kulley anagu xafiis ahaan waxaan ka caawinaynay dhinaca injineerada iyo survey dataga design-ka ayaan ka caawinaynay. bulshaduna way sabaabushay dhammaan kharashka ku baxaya bulshada ayaa maxay ahaydeen iska bixisay oo wadadan furatay. marka ujeedada ay bulshadani wadadan u furanaysay waxay ahayd in ay isku xidhaan Balligubadle oo xuduudda aan la leenahay Somaliland ilaa iyo Dhagaxbuur halka Higloley meesha la dhahay laamiga kaga dhacayso inay furtaan, taasoo ay bulshadu uga dan lahayd isku xidhka labada bulshada ku dhaqan dhammaan intaas degan iyo ta kale ay uga dan lahaayeen waxay ahayd dhaqaale in magaalooyinka u dhaxeeya Balligubadle ilaa iyo Dhagaxbuur Higloley inay koraan. inta badan wadadan waxaa mara bagaashka iyo maxay ahaydeen raashinka guud ahaan gobolada kale ee ilaa Goday Dhagaxbuur maxay Jarar baan u jeedaa ilaa iyo Shabeelle ilaa iyo maxay ahaydeen Qabri Dahar waxa tago dhan ee lisidii halkan ay soo maraan. inta badan halkan ay soo maraan marka dhaqaalahan way isku xidhi doontaa. marka anagu ka dawlad ahaan waan aragnay dadaalka badan ay bulshadu sameynayso inaan anaguna map roadka dawladda aan ku darno kadibna iyagu intay sameeyeen maahina anaguna aan qorshe kale ballaaran mararka dambe aan maxay ahaydeen ugu darno oon soo aragno ay ujeedadeedu ahayd. waxaan wadadan aragnay wadada si fiican ba u baneeyeen. wadadan waxay ka bilaabantaa Balligubadle ka soo bilaabantaa oo xadka Soomaaliland ku yaala ilaa iyo Higloley ayaa wadadan in ujeedada loo sameeyay ay tahay in ilaa Higloley gaadho. hadda waxa banaysan oo clearance-kii wadadu sanad arkaysan u banaysan waxa weeyaan 45 kiiloomitir waa halkan Balligubadle ilaa Cafuufley weeyaan. intii kalena hadda GPS-ka la geliyay way socotaa. kulley wadadan cidda sameysay waxa weeyaan bulshadan deegaankan degmada Xarshin u dhalatay. kulley sida lagu yaqaan degmada Xarshin bulshadeedu waxay inta badan wax ku qabsataa ka qaybgalka shacabka. waxa hore loo ogaanay dugsiyo saro fara badan sameysatay. haddana wadooyin iyo waxyaabo kale oo waaweyn oo aan dad shacab sameyn karin bay u gudbeen. dadka shacabka ee degmada Xarshin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waliba gaar ahaan ciddii ka qayb gashay wadadan Balligubadle isku xidhay ilaa Higloley. marka kulley dadka shacabka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. kulley dadka shacabkii abaabul fara badan bay sameeyeen sida wasiirku sheegay. kharash aad u fara badan oo lacag qiyaasta 5 milyan u dhawey ayaa hadda ku baxday wadadan. wayna dadka shacabka waxay diyaar u yihiin ilaa intay ka gaarayso Higloley inay sii wadaan iyagu ka qaybgalkooda. dhan kale waxaa iyaguna ka hadlay qaar ka mid ah shacabka goobahaas ku sugnaa ee ka qayb qaata sameynta wadadaasi. wadadan in badan baan u baahiyeysnayn, baahi badan baan loo haysay. in badan baanu annaga iyo dawladdeeda ilaa heer federaal heer ismaamul aanu ilaahayna la rajaynayna inay noo qabsoonto. alxamdulillaah ilaa qurba joog ilaa qolqoljoogda waxaa la yidhaha dadka Itoobiyaankan qurbaa joogin ayaa qolqoljoog la yidhaha xoolo dhaqatada reer miyiga. waxaanu ku bixinay xoogga iyagii iyo xoolaha iyagii. waxaanu gaadhsiinaynaa Higloley halkay kaga dhacayso
waddada dhagaxbuur higlale waxaa la yidhaha laamid halkay kaga dhacdo laamidaa jigjig labada gobol isku xidha ayaannu gaadhsiinayna annagoo iskaashanaya labada shacab kana heshiinay nabadgeliyadii guud inaannu wadajir iyo walaaltinimo ku dhammayno wadajirka waddada oonu ku heshiinay dawladdana u geynay halkaa xoog iyo xoolaba haddaannu qurba joognay haddaannu dalka etoobiya nahay waddada xoogga iyagii iyo xoolahayagiiba waan iskugu geynay geesta kale waxaa iyaguna nooga warbixiyey qaar ka mid a howlwadeennada waddadaasi shacbigii kol hadday ilaa halkaas soo gaadheen oy wixii ay qabsanayeen iyo tamartoodii qolqoljoog iyo qurbajoogba laysugu keenay inay dawladduna roolkeedii ka qaadato oo ay iyana dhinaceeda istaagtaannu aad uga rajaynaynaa waananu ka fili doonnaa dawladda iyadana waa garab taagannahay waana la shaqaynaynaa waxa aannu ula shaqaynaynaanu hantiga u gelinaynaanu ugu horaynaana waxa weeyaan dawlad jacayl intii iminka isbeddelku yimi ayaa waxaa ku soo dhiiraday hadday tahay qurbajoog hadday tahay dadku inay wax qabsadaan awal hore may jiri jirin inay dadku sidan xitaa wax u wada qabsadaan in laysdhex galo waddadan oo dhibaata ka haysata dhanka isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga labadaba ayaa marka la dhammaystira waxay kor u qaadi doontaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga labadaasi gobol